xuska 18 May waxaa ku daatay dhiig fara badan muddooyinkii dambe ee xukuumadihii militariga ay isaga dambeeyeen Soomaaliya gaar ahaan xukuumadii Maxamed Siyaad markii dagaal fool ka foolaa ay ku waajaheen xoogag mucaarada oo hubeysan sida ururkii SNM dagaaladaasi kadib waxaa ka dhashay in dib u xoreyn lagu sameeyo Somaliland 18 May marxaladaha kala duwan ee sultanka sano muddada ka badan ee halganada kala duwan ay soo socdeen ayay ku sugan tahay iyadoo ay maanta tahay maalinta 18 May ee 1990 ay la soo noqotay xornimadeeda qaranimada Jamhuuriyadda Somaliland ayaa waxa halkan taagan kooxdii ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ee qaybta Bambeyda loo yaqaano waxa fadhiya madaxweynihii Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi wasiiradiisii iyo dhammaanba hogaankii dawladda qaranka Jamhuuriyadda Somaliland iyadoo aad si leefan uga daawanaysan telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa waxaan salaaminaa ummadda reer Somaliland meel walba ay joogto anagoo leh happy May sanad cusub oo wacan oo wanaagsan nabad ku dabaaldega nabad ku ciida waxaan leenahay waa maalinteena helay qarannimadii naga luntay 1960kii maalintii 26 Juun iyadoo aynu u loognay ama qaranka Soomaaliya aynu la midownay dhammaantiinba waxaan idin leenahay salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan idinku wareejin doonaa walaashay Nimco Shirdoon نسيم محمد موسى ديرية نادي أدبض وحسن تاي جود هم بالشعب الجمهورية الصومالية لو حلنا همبلية سنة جورة وعم بانو لنا هاي وحنا دبعتك الناس سنة جورة إني كل سجال بقول كوبي سجاشن كي مركز أي كسر وركتي سنة جورة إني دل في السكور تجري الصومالية حرية دي إنه كل صون قناي وحنا لنا هاي همبلية مرلبات شعبي وين رئيس الصوماليلان الله كديجو سنة كي سميدا إنه بش يبر واقع إنه كده نوع ينبض سند جورة وناكسن وسلان هرب يدرك سوشيال سند جورة دي تدبي لبعتناد مالنتي قرن كجمهورية الصوماليلان إلا سوورتي دقيستيال عندها دعوة هل كانوا مرة يومك عيدا كي مدي قرن كجمهورية الصوماليلان ومناسبة روتي وروح بدن نحن نقول رئيسنا أمريكا حسين عبد الله يوسف تغسي مناسبة 18 May xuska ka dhacaya maanta fagaaraha magaalada Hargeysa ee had iyo jeer lagu xuso 18 May gaar ahaan jidka wadnaha ee magaalada Hargeysa waa isugu yimaadaan xoogaga xusaya haday tahay ciidamada kala duwan ee qalabka sida gaadiidkooda ururada bulshada iyo qaybo kale oo badan oo kamid ah dadka had iyo jeer u soo baxa munaasabadan waxa kale oo iyaguna jira dadweyne isxilqaama oo munaasabadan ka qayb qaata ciidamada qalabka sida ee Somaliland waa kuwa had iyo jeer heeganka u ah difaaca iyo qaranimada Jamhuuriyadda Somaliland ciidamada Somaliland waa kuwa la dulqaad haynimo damac yari iyo in aanay seexan maalin had qaroona aanay dubaqa gelin habeen hadalkiisa shucuurta iyo qiirada wadaniyadeed ee bulshada oo ku midaysan qaranimada iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Axmed Cali Tuur madaxweynihii koowaad ee Somaliland waxa lagu xasuustaa markii labadii sano ee SNM ee barnaamijka siyaasiga uu dhigayay hogaaminta dalka inay SNM hayso uu dhamaaday hal maalin kuma darsan waxayna dawladdiisii talada ku wareejisay shirkii Boran Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal waxa uu dhisay haykalkii dawladnimo waxa uu dhisay ciidamada qaranka Somaliland waxa uu sameeyay lacag u gaar ah waxa kale oo uu sameeyay baasaboor u gaar ah xilligaasi madaxweynaha mudane Maxamed Ibraahim Cigaal Allah u naxariisto labadoodaba waxa ay dhiseen Somaliland kor u socota oo aan hoos u socon daahir yaale kaahin waxa uu qabtay 4 doorasho oo dalkana waxaana uu hirgeliyay nidaamkii dimuqraadiyadda ee khadka uu jeexay mudane Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal kadib markii dastuurka dalka loo codeeyay 2002 sidoo kalena uu bilaabay furitaanka axsaabta siyaasiga ah Ahmed Maxamed Maxamuud Jiiraanyo isagu waxa uu ahaa mucaaradkii la dhisay dimuqraadiyadda mudane daahir yaale kaahin waxa uu ahaa madaxweynihii bedelay maanta oo doorashadii ugu dambeysay dhacday 2017 bishii November madaxweynaha haatan talada haya ee Muuse Biixi Cabdi waxa uu yahay madaxweynaha talada kala wareegay madaxweynayaasha ka wareegay waxaana isaga hortaala waaye ka duwan waayii hor yaalay madaxweynayaashii isaga ka wareegay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu horseeday in horumarka dalka laga shaqeeyo lana yareeyo musuqmaasuqa tacab soo saarkana la dhiirigeliyo wadadaasna haatan ayaa bilaabantay waxa uu talada hayaa muddo ku soo 5 bilood oo kaliya haddana wax badan ayaa uu soo jeediyay
oo la doonayaa in hilikaasi uu qaatiyo nidaamkiisa maamul shacabka Soomaaliland meel kasta ay joogaan iyo gaar ahaan shacabka waxaan bogaadin iyo hambalyo iyo salaam u diranaa guud ahaan ummadaha la soconaya ridwaan caydiid ayaan ku soo dhaweyn doonaa insha Allah abib aad baad u mahadsan tahay jamhuuriyadda Soomaaliland guulo badan bay gaadhay waxa tusaale u ah dadka dhalinyarada ah ee anigu aan ka mid ka ahay waxay ku guuleysteen inay arkaan Soomaaliland nabada Soomaaliland horumara Soomaaliland aan la kala lahayn waa taata keentay halgan adagoo 30 sanadood socday in lagu guuleysteen jamhuuriyadda Soomaaliland ay noqoto qaran madax bannaan dhalinyaradu may arag waxaan Soomaaliland ahayn Soomaaliland bay ku dhasheen Soomaaliland bay ku barbaareen Soomaaliland bay wax ku barteen Soomaaliland oo nabaday ku raaxaysanayaan waxaan u ducaynaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay halgankii lagu xoreeyay qaranka jamhuuriyadda barakaysan ee Soomaaliland waana guusha maanta midhaheeda ay guranayaan dhalinyaro waxa maraya dhalinyarada halka maraysa waa kuwa horseedka u ahaa in halganku uu dhaco kuwana waa kuwa guranaya horseedka u ah nabadda ay ku noolaanayaan 27 sanadood sanad guurada 27aad ee maalinta qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland dhalinyarada haweenka qaybaha kala duwan ee bulshada dhammaan waxay u mahadnaqayaan ciidamada qalabka sida oo suurto geliyay inay Soomaaliland min bari ilaa min galbeed ay nabad ku naalooto ay taagnaadaan dhalinyaradu waxay u istaageen inay salaasiyaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ay noqonayso sanad guuradii koowaad ee isagoo madaxweynaha oo qarankan ka arriminaya ay Soomaaliland ka qabsoonto guud ahaanba hambalyo kala duwan ayay shacabka reer Soomaaliland ee ku kala dhaqan daafaha dunidu ay isku dirayaan fantasiyaha iyo dabaaldega lagu weyneynayo maalinta qarannimada Soomaaliland waxay caalamka tusaysaa dareenka sida shacabka reer Soomaaliland iyagoo isku duuban ay u difaacayaan u garab taagan yihiin inay Soomaaliland jirto noqoto qaran guuleysta haddii Soomaaliland lagu xoreeyay qori maanta dhalinyarada Soomaaliland waxay ku difaacaysaa qalin aqoon dood af iyo nabad waana guul Soomaaliland u soo hooyatay 27 sanadood ay jirto ku raaxaysto ku dabaaldega fantasiyaha maanta qarannimada Soomaaliland afayeenka madaxweynaha Soomaaliland Maxamuud Warsame ayaan u dhiibay soo xafladda u sii daadeeyo bismillaahir rahmaanir rahiim waxaynu bartankaga jirnaa xafladda munaasabadda xuska la soo noqoshada madaxbannaanida dalka jamhuuriyadda Soomaaliland sanad guuradii 27aad iminkana weli waxa maraya ardayda kala duwan ee dugsiyada sidoo kale munaasabaddan iyo xafladdani waxay ka socotaa guud ahaan gobollada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo degmooyinkoodaba iyada oo qurbajoogga iyo jaaliyadaha dalka Soomaalilandna ay wadamada kala duwan ee caalamka ay ka xusayaan isla markaana ka muujinayaan maalintan iyo qiimaheeda maalintan goonistaagga dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waa maalin ku qoran quruufta dadweynaha shacabka Soomaaliland waana go'aan shacbi oo ay guddoonsadeen dadka geyiga Soomaaliland sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa xafladdan maanta kaga qayb gelaya magaala madaxda gobolka Togdheer ee Burco oo ah halkii iyo xuduntii lagaga dhawaaqay goonistaagga dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo la soo noqoshada madaxbannaanida isagoo madaxweyne ku-xigeenka wafdi hogaaminayaan ay ku sugan halka sidoo kale gobollada kale dalkana waxa ku sugan wafuud kala badan oo matalaysa qaranka isla markaana kala qayb galaysa munaasabadahan shacabweynaha reer Soomaaliland martida munaasabaddan ku sugan oo iska soo daba dhacaysa awgeed aad bay u badan tahay wasiirka wasaaradda cadaaladda Cabdi Jaamac Axmed Qalombi ayaa wuxuu hogaaminayaa wafdiga dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya sidoo kale waxa jooga jaaliyadda dalka China oo hogaaminayo Master Chishubin ardayda dugsiyada kala duwan oo Nuuruddin iyo Gandhi ay indhahaygu qabanayeen ayaa hadda mudane madaxweyne calanka qaranka Soomaaliland oo baaxadiisu ay weyn tahay halkan salaan kaaga soo jeedinaya waxa dhalinyaro haween oday iyo guud ahaan qaybaha bulshadu ay ku guda jiraan xuska munaasabadda 27 guurada ka soo wareegtay la soo noqoshada madaxbannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland oo taariikh weyn iminkana waxaynu soo gaadhay madaxweynihii hore ee Soomaaliland mudane madaxweyne Daahir Yaale Kaahin madaxweynihii hore ee Soomaaliland soo dhawow waa madaxweynihii saddexaad ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo nasiib u yeeshay inuu nagala qayb galo xuska 27aad ee aynu maanta halkan ku xusayno aanad soo dhaweyno Daahir Yaale Kaahin madaxweynihii hore ee Soomaaliland mudane Daahir Yaale Kaahin
oo hadda dalka soo gaadhay ayaa isla iminkaba si degdega u soo gaadhay madasha ay ka socoto xuska qarannimadani brofesor cali khaliif galayd ayaa isaguna madasha ku sugan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ciid injineer faysal cali xuseen gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye axmed cabdidheere iyo mas-uuliyiin kale oo badan oo matalaysa asxaabta kale ee qaranka waxaa iyaduna munaasibaddan shacabka reer somalilan hambalyo la wadaagaya hawada u soo marinaya madaxweynihii hore ee somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo oo waddanka ingiriiska ku sugan islamarkaana shacabka somalilan ku soo hambalyaynaya dabaaldegga xuska maalintan iyo qiimaheeda jaamacadda golis university qaybo ka mida iyadoo aan cududaya awoodda ardayda iyo ubaxa qaranka dalka jamhuuriyadda somalilan uu leeyahay aan lagu soo bandhigi karin maalin iyo meel keliya waxaa halkan maraya qaybo ka mid a ardaydii jaamacadaha in wakhtigan iyo sanadkan iyo sannadahanba jaamacadaha dalka ay ka qalin jabinayaan ardaydii dhalatay iyada oo somalilan ay jirto iyadoo somalilan ay xor tahay iyadoo somalilan ay nabad tahay islamarkaana ay wakhtigan yihiin kuwo iyagu siyaasadda ku qaangaadhay xubnaha hadda ku soo biiray waxaa ka mid ah wasiirkii arrimaha gudaha ee hore ee somalilan mudane duur waabeeye iyo rag kale oo fara badan guud ahaanna waxaa loo socdaa si aad iyo aad u la yaab badan muuqaalka hortayda mari doonaa waxa uu yahay sawir aad iyo aad iyo aad u qurux badan ardayda waxa weeye dugsiyada oo si farshaxanimo leh uu u horkacayo nin dadkaba ugu dheer maalinka maanta salaanta madaxweynaha guddoonsiiyey waxaa soo bilaabmay qaybihii bulshada haan waa la wada garanayaa haantii biyaha maaha waa haantii caanaha oo calanka jamhuuriyadda somalilan ku suntan garan maayo kolley gadhoodh iyo dhayin wax ku jira laakiin haan liingaxan oo ilaa furtii ay ku xidhan tahay oo saabkeedii iyo haamadhowrkii ku jiro ururkii haweenka ee haantaasi ay u ahayd astaanta ayaa maraya iyaga ayaa salaan madaxweynaha iyagu yar iyo weynba loo hor istaagay si bilicsanna iyaga iyo haantooda caanahaba wuu uga guddoomay nabad iyo caano waxay ahayd sumaddeenna iyo astaanteenna sancaani ayaa iyaguna halkaa maraya oo soo soconaya dawladda hoose ee magaalada hargeysa degmada axmed dhagax ayaa u horeeya xuseen cabdilaahi deeqsi waxauu ka mid yahay odayada wasaaradda warfaafinta xuseen baan ku soo dhaweynaya xuseen bal hadda inuu sawir buuxa ka bixiyo xuskan iyo xusas kale oo fara badan oo uu soo joogay somalilan waxa ay soo gashay halgan aad u dheer oo muddo ka badan 30 sannadood ay ku soo jirtay somalilan lagama sheekayn karo marxaladihii kala duwanaa ee halganka oo noocyo kala duwana ee ay soo gashay markii madax bannaanida somalilan 1991kii lagaga dhawaaqay magaalada burco xarunta gobolka togdheer waxay somalilan markaasi bilowday hillin ka duwan kii halganka waxayna qaaday hillin u horseedaya horumar somalilan waxay qabsatay 7 doorasho oo ku yimi madax bannaani hal qof iyo hal cod somalilan waxay soo martay 3 doorasho madaxweyne oo 3 madaxweyne ay iska bedeleen somalilan waxay qabsatay 2 doorasho golo deegaan oo ka hana qaaday dalkan xuseen oo mahadsanid xagga beeraha ayaan kaaga dhowaa waxay soo jiitay qindi meeraran oo hadda hortayda maray madaxweynahana ilaa dibidaasi iyo qindigaasi meerarani ay geesaha iyo harqoodka iyo nugidaba ku salaamayeen waxaa xusid mudan in madaxweynuhuna aad u badiyo oo uu yaqaano dhaqanka xagga beeralayda beeraha halkan ururada beeraha ee halkan soo maray qindi meeraran haddii aad tidhaahdo waa dhebel waa 2 dibi oo isku xidhan oo isku xooga oo isku awooda oo nugidii iyo harqoodkii iyo manaaqyadii iyo kootaradii iyo intii ku xidhnaydba ay leeyihiin waxaa ku xigay fardihii oo hadda ay marayaan fardaha midabka ashirkaa 2 faras oo aad iyo aad u qurux badan oo ku qalabaysan iyaguna hanaan aad u la yaab badan gaari lagu sameeyay baan isla jamhuuriyadda somalilan aad iyo aadna uga duwan gaadiidka dalka maraya degmada macalin haaruun oo dawladda hoose ee magaalada hargeysa ay soo qabanqaabisay waxaa weliba xuseen oo xusud mudan oo xusuustayda daqiiqadaa ku soo dhacaya 15kii bishii may maanta oo kale
waxaan nasiib u lahaa in aan xaflad sidan oo kale joogo oo ay xilka kula kala wareegayeen allaha u naxariisto cabdiraxmaan axmed cali cabdiraxmaan tuur iyo allaha u naxariisto maxamed xaaji ibraahim cigaal labadii madaxweyne ee koowaad iyo labaad ee jamhuuriyadda somalilan cabdiraxmaan oo cali faarax madaxweyne ku-xigeenkii labaad ee dalka ayuu ahaa maalintaas 15 May 1993 maanta oo kale isaga ayaa xilka madaxweyne ku-xigeenimo kula wareegayay magaalada Boorama maantana aanoo garcadaaya ayaan u joogaa maalintan aanoo ina yar ayaan u soo taagnaa oo aan wax ka duubayay waa nasiibiyada soo maray ee aan aad iyo aad u xasuusanayo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilandna wuxuu astaan u noqon doonaa insha allah dadka tirada yar ee caalamka inta ay soo halgamaan ee ay soo dagaalmaan qoriga inta ay dhigtaan cod soo dhigta oo cod ku hela doorasho oo ku hogaamiya hanaan dimuqraadiyada haweenkeennii oo aad u bilicsan oo iyagu baryahaba ay garbasaar iyo shalmad iyo masar iyo gambe iyo diribca u ahaa calanka jamhuuriyadda somalilan ayaa maraya oo tawfiiq urur lagu magacaabo ayaa hadda hortayda ka muuqda waxa si aan kala go' lahayn fagaaraha madaxtooyada ee aanu ku sugannahay dhinaciisa qorrax ka soo baxa isku soo dabahaya oo soo soconaya qaybaha ciidamada qaybaha ururada bulshada qaybaha ardayda dalka qaybaha dhallinyarada iyo qaybo aad iyo aad u tiro badan oo aan iyaguna ku kala go'aynin xuska munaasibadda heer qaran ee lagu jiro ninbaa kelidii dabaaldegay oo aad iyo aad isagoo soo gocle iyo orod ku jira salaanta bixiyey guntigiisa iyo tabsiga wuxuu leeyahayba waxa weeye calanka jamhuuriyadda somalilan waxaa xusid mudan aarkii iyo libaaxii weynaa ee cali maxamed waran cadde oo ka caana jamhuuriyadda somalilan oo calanka isna qoorta ku soo xidhay oo labisan ayaa hortayda maraya indhahaygu aad uma qabanayaan oo libaax kolley ismaanaan arag cabsiina waa jirtaa laakiin shabag buu ku jiraa si qurux badan buu u socdaa degmada gacan libaax waxay dheer tahay degmooyinka jamhuuriyadda somalilan libaaxa magaceeda ku caanka ayay wadataa waa tahay beertii oo caanihii lagu dhexlulayo oo tamaandhadii iyo babaygii iyo garowyararihii oo la soo shoqlay waa gaadhi magaalo ah ayaa hadda hortayda maray gaadhi magaalo gaashaamana waxaa ku yaalla hadhuurhkii iyo gallaydii iyo khudaartii oo beertii masnada ciyaartii hiddada dhaqanka lagu ciyaarayaa dhiishii caanaha ayaa lagu lulayaa qaybo kale oo iyaguna haweenka ka mida ayaa gucle iyo socod iyo gaadika ciyaarba ku jira waxaad mooddaa in sidaa looga soo shaqeeyey xuska munaasibadani oo mayarka caasimadda cabdiraxmaan maxamuud caydiid iyo kolley intii la shaqaynaysay ay ka mid yihiin in ay u muuqato si aad iyo aad iyo aad u layaab badan in ay xafladdan uga soo shaqeeyeen waxaa kaloo iyana muuqata hanaanka loo soo qurxiyey boodharka iyo sawirrada iyo nidaamyada oo indhahaygu in badan ay arkayeen sagal jad oo meel walba ka muuqatay oo ku sharaxnayd boodharka lasoo sameeyey iyo koofiyadaha in aanay iyaguna ka seexanin beryaha hashii iyo nirigtii iyo aad iyo aad madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan weliba geela aad buu u tixgeliyaa waa laba halaad oo irmaana oo ramada oo waxa daba socda mahareemacad mise shabeel barabaraalo allah ku yaqaan iyo xaalkiisu maalinta qarannimada jamhuuriyadda somalilan oo sanad guuradii 7labaatanaad ee qaranka somalilan la xusayo dhalinyaro ayuu gaadaka ciyaar sameynay wejigiisa uu ku xardhayay midabada casaanka caddaanka iyo akhtarka oo ah midabka uu ka kooban yahay calanka jamhuuriyadda somalilan ayaa maraya waxaan u mahadnaqaynaa qof kastoo munaasabaddan daawanaya mid madashan ku suganba guddida qabanqaabada iyo diyaarinta sanad guurada 7labaatanaad ee jamhuuriyadda somalilan oo si habsamiya uga shaqeeyay in munaasabadani ay dalka oo dhan si weyn uga dhacdo iyo dalalka dibadda ay ku sugan yihiin jaaliyadda reer somalilan haweenka oo ah lafdhabarta bulshada oo hiddo iyo dhaqan ku labisan iyo agabka hiddiya dhaqankana sita ayaa salaan mashxarad iyo sacab ku weynaynaya maalinta dabaaldegga jamhuuriyadda somalilan ururada shaqaalaha ee dhismaha ee tisqaad ayaa meesha maraya oo cududooda qarankan ku dhisay bilicda iyo quruxda jamhuuriyadda somalilan ay maanta leedahay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi ayaa qaybaha kala duwan ee bulshada ee madasha maraya markay agtiisa ku sugan yihiin gacanta u taagaya isagoo ixtiraam iyo weynayn u muujinaya bulshada kala duwan ee jamhuuriyadda somalilan oo 2017 bishii December November 13 doorashadii dalka ka dhacday cod aqlabiyada 5% ku doortay inuu ka arrimiyo 5 sanadood ee soo socda jamhuuriyadda somalilan madaxweyne muuse biixi cabdi iyo madaxweyne ku-xigeen cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici 1998 May
waxaan xasuusanaa waddanka sida uu ahaa iyo siduu u burbursanaa ee wax kasta eberka looga bilaabay zero ayaa wax kasta laga bilaabay ummadda somalilan ayaa kala dooratay inay noqdaan dad iyo xoolo iyo dugaag waxayna doorteen inay dad noqdaan oo ay dhistaan waddankooda dowladnimadooda iyo qarannimadooda waxaad ka dareemi karaysaa yididiiladaasi da'yarta maanta ee haatan horteenna ku gaadda ciyaaraysa giraanta iyagoo xidhan calanka jamhuuriyadda somalilan oo ku xusaya munaasabaddan qiimaha ugu leh ee ay ku baxday naf mood iyo maalba 18 May kuma iman dayal kuma iman ciyaar waxaa loo maray hilib iyo waddo aad u dheer oo halgana waxaana loo huray dhig fara badan iyo hanti aad baad u mahadsantahay mudane xuseen cabdilaahi deeqsiin xukuumadda waqtigan ee uu madaxweynaha u yahay mudane muuse biixi cabdi iyo cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil seylici oo isna madaxweyne ku-xigeen u ah muddo 5 bilooda ayaa waqtigan talada ay soo hayeen waxaa laga yaabaa tallaabooyin caynkee ah ayay xukuumaddu qaadi doontaa inay dad badan isweydiiyaan laakiin wejiga madaxweynaha qofkii akhrisan karayaa wuxuu ogaanayaa in orodka maaratoonka marka lagu jiro qofka xawaaraha ugu dheer ku ordaa u daalo marka dhexda la marayo laakiin xawaaruhu waxa uu ku jiraa marba inta orodku uu sii socdo sidaa daraaddeed xoogga iyo tamarta iyo caqliga iyo awoodda xukuumaddu way dambeeyaan hadda waa raadqaad waana sida bilowga ay u tahay cid kasta oo saaka halkan marta waxaad is odhanaysaa malaha hadduunbay dhasheen quruxda iyo shacniga iyo ifafaalaha ka muuqda naadiga ciyaaraha ciidanka asluubta jamhuuriyadda somalilan waa xudhuun iyo xasan caalidheere jananadii iyo ciidankoodii dhallinyaradoodii waa tahay way ku jiraan salaantana way bixin doonaan haddana qaybtii sportiska ayaa halkan maraysa kabitaano cabdirasaaq iyo janaaral xudhuun ma sawiradooda arkaya aad iyo aad iyo aad way ku mahadsan yihiin salaanta madaxweynaha ay siiyeen ururadii naafada ayaa maraya maasha allah maasha allah maasha allah waxay saaran yihiin baaskiiladoodii waxay iyagoo aan u kala hadhin u soo hureen waqtigooda oo ay u soo jeedeen oo ay u soo tooseen xuska munaasibadda ugu yaraan dhowr iyo 10 gaadhi oo ka mida kuwa naafada ama dadka curyaamintii ay saaran yihiin ilaahay laxaadkooda caqli iyo kartibu ugu bedelay allah u siyaadiyo waxaa laga yaabaa inay kolley mujaahidiin badanina ku jiraan rag badan oo iyagu dar alla u naafoobin ay ku jiraan halkooda ay ku maamuusan yihiin salaantana madaxweynuhu uu ka guddoomay way weli soconayaan qaybaha bulshadu jaamacad baa halkaa maraysa jaamacadaha dalka qaar ka mida oo iyaguna halkan shifa health baa la yidhahdaa waa jaamacad xagga caafimaadka afartii madaxweyne ee hore iyo madaxweynaha hadda oo madaxweyne shanaad oo u sarreeyay intaba sawirkooda istaan dhalinyaro xagga caafimaadka wax ka barata weey shaadkii neersanta ayay xidhan yihiin calanka jamhuuriyadda somalilan wuu ku taxan yahay madaxii laamijo hablahoodiina meeshay marayaan shifa way ku mahadsan yihiin madaxweynaha salaanta way kala guddoomeen iyaga oo shacnigoodii iyo quruxdoodii ku gaashaaman calanka jamhuuriyadda somalilan uu astaan u yahay ilaahow qof walba halkiisa ku barakee waayo kii xoog lahaana dhulku aad u xanuuninaya kii itaaliyaraana tamartiisa ayuu socdaa togba taagta biyaha iyo tamar buu rogmadaabay soomaalidu tiraahdaa haweeney iyo inanteedii yareed oo iyagu durbaankii ama narsadii iyo kuwii lagu tumayey ulihiisii kelidoodu taa ayaa soo maray weli fari kama qodna halkan waxaa soo socda oo soo gabaara guddoonaya guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda sharmaarke iyo agaasimihii guud iyo guddoomiye ku-xigeenkii oo u soo labistay halkan inay iyaguna madaxweynaha sida shacabka u hormaraan oo ay salaamaan marar badan haddii aad arki jirteen guddoomiyaha oo madaxtooyada kaaga dhow iyo meelaha mas-uuliyiinta hadda salaanta ayay socod ku bixinayaan waa laydinka guddoomay waa guddoomiyihii shaqaalaha waa agaasimihii guud waa guddoomiye ku-xigeenkii cabdikariim waa baabuurtii ay ku soo galeen madax taabashada iyo tartanka aad u faraha badan oo biibiilayaashii iyo calaamadii jamhuuriyadda somalilan ay ku gaashaaman yihiin saaka ciidan baabad moodaa hay'adda shaqaalaha dawladda haa waa ciidan oo ciidan dirays xilan maaha oo militari oo qori sita laakiin waa ciidan qalin sita oo caqli sita oo cilmi sita oo dalka iyo dadkaba u shaqeeya professor cali khaliif galeyn baa halkaa fadhiya daahir rayaale kahin madaxweyne hore jamhuuriyadda somalilan baa ku xiga saleemaan maxamuud aadan baa ku xiga madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi guddoomiyaha maxkamadda sare guddoomiyaha baarlamaanka guddoomiyaha xisbiga ucid xisbigii waddan iyo waabeeye duur iyo niman kale komishinkii doorashooyinka qaranka ayaa fadhiya
jananadii ciidamada kala duwan ee dalka oo dhan baa fadhiya dhammaanba intii xil haysay baa fadhida martidii ka socotay waddamada gudaha iyo kuwa dibaddaba iyo dariskeenaba ayaa iyaguna sugan dhammaantood salaanta ayay halkan u lugoodinayaan mashruuca dib u habeynta shaqaalaha ayay ahayn gaadiidkan inoo hormaray iyo kuwa socday debdemiska waxa weeye taliya axmed sawaaxili iyo ciidankiisii taliyo halkuu fadhiyaa laakiin ciidan aan habeen iyo maalin seexanin ciidan islaanta god ku dhacdana ka soo saara dukaanka gubta ama sandaqada gubatana badbaadiya oo baktiya ayaa halkan maraya gaadiidka dheeha casle ee dhawaaqa hoonku baxaayo beri baan aad xusuusta waxa weeye ciidanka debdemiska ciidanka la dagaalanka aafada dabka iyo dhibaatadiisa allah idin barakeeyo madaxweynuhu salaantiina si qurux badan ayuu u qaadanayaa ka baxayana waa ciidanka debdemiska oo aad iyo aad ciidan qurux badan oo dhisan oo taariikh leh oo ku soo biiray jamhuuriyadda somalilan ciidamada kala duwan ee ay leedahay ciidankani waxa weeye ciidan tilmaaman waa ciidan dariiqyada laga yaaco oo baarkinka loo banneeyo iyo waddooyinka marka ay dhiila timaado ee ay baxayaan booyadihii biyaha ayaa daba socda waa ciidan aad iyo aad wakhtigoodan u qaadanaya oo u qalabaysan oo qurux badan oo maasha allah wax badan dalka hadda ka qabtay waayahay ciidamadii ayaa soo gaadhay haatan waanan ka baxaynaa mikrofoonka intay ciidamadu socdaan iyadoo mas-uuliyiinta iyo marti sharaftuba ay dhammaan istaagi doonaan inta ciidanku marayo
ciidanka gaarhkii sida ay u labisan yihiin iyo sida ay u habaysan yihiin ay ugu qurux badan tahay ciidamada waa ciidanka gurmadka biliska somalilan gaadiidkoodii ayay ku gaaran yihiin waxay ku gaashaaman yihiin dabkoodii si degan ayay u socdaan salaantuna waxay u socotaa sidii si ugu qurux badnayd munaasabadda nasiib waxa uu yeeshay oo fadhiya ugu yaraan 3 madaxweyne ku-xigeen oo jamhuuriyadda somalilan soo maray madaxweyne ku-xigeenkii koowaad xasan ciise jaamac madaxweyne ku-xigeenkii labaad cabdiraxmaan oo cali faarax madaxweyne ku-xigeenkii saddexaad axmed yuusuf yaasiin madaxweyne ku-xigeenna wuu ahaa madaxweynena wuu ahaa daayir yaale kaahin oo labadaba isku soo qabtay waxa weeye iyaguna dadka aan fadhiisanin toddobaadkii u dambaysay waxaa ka mid ah dadka ku sugan maxamed xaashi cilmi oo dhismaha caasimadda loo tiriyo aabbana uu ahaa oo aan garanayo sidii uu u soo bilaabay waqtiyada ka mid ahaa ciidanka biliiska qaybta gaashaaman ee shabaglayaasha oo aad ku xusuusanayso rabshadaha ka dhaca afrika iyo yurub iyo meelaha la mid ah baabuurta gaashaaman ee ka horsegta hadda ayay iyaguna marayaan oo ay soconayaan waxa weeye cududda ciidanka biliiska jamhuuriyadda somalilan qayb weyn oo ka mid ah laga gurte kaashan digo goyaha ka joogsada kubanimaduha geedhadaacaho midha laga gurte kaashan digo goyaha ka joogsada kulufiyoola gabagaba dagaal kulufiyoola gabagaba dagaal gesigan kalaabani kaadadow dhigo kulufiyoola gabagaba dagaal kulufiyoola gabagaba dagaal gesigan kalaabani kaadadow dhigo igashe abaal inan gudo wanaag igashe abaal inan gudo wanaag way gudboon tahay igashe abaal inan gudo wanaag igashe abaal inan gudo wanaag way gudboon tahay hagaban hagamin haguran hagaabsan gaar hayaa dalku haguran hagaban hagamin haguran hagaabsan gaar hayaa dalku haguran hagaban hagamin haguran hagaabsan gaar hayaa dalku hagaban hagamin haguran hagaabsan gaar hayaa dalku geesi dhiiran oo geygo dhintiyo geeshkiyaan hurdada ciidamada qaranka ee jamhuuriyadda somalilan waa ciidamo ku gaashaaman hubka tiknikada ah qabyada casriga ee kala duwan markaasina tababaran oo qaba tababaro aad ku shaqeeya iyo anshaxiis wanaagsan gacmaha milatari ama wadaha milatari ayaa tidhaahdaa ciidanka oo xoog tababar u qaata islamarkaasina haysta saanad casriya waxay yaraysaa dhiigga maalmaha qadaad iyo dhimbiiruhu dhacayaan ee dagaalada ciidamada somalilan waxay ku sirkoobeen dulqaad hayinimo qaymacyari iyo feejignaan ciidamada somalilan ma yaqaanaan gardarrada hase yeeshee cid kasta oo ku soo xadgudubta qarannimada jamhuuriyadda somalilan iyo xuduudaheeda waxa ay ka abaalmariyaan gardarradaasi ay duulaanka ku soo qaadeen ciidamadu oo haystaan niyad dhiska shacbiga iyo taageeradooda waxay had iyo jeer
heegan u taagan yihiin difaaca qarannimada waa kuwa aan habeen seexan hadh qabowna aan dubaaqa gelin waa kuwa adigoo hurda habeen kasta ku dul taagan iyagoo aan fadhiyin jiifin ee qoriga degta ku sita oo taagan ilaa waagu uu ka baryayo ciidamada kala duwan ee somalilan qaybahooda kala duwan mid waliba hawl gaara ayuu qaabilsan yahay ciidamadaasi howlaha gaarkay qaabilsan yihiin waa kuwo lagaga gamay oo maanta intii somalilan jirtay aan lagu tilmaami karin in wax dayici ay ku yimaadeen waxaa xusid mudan anigoo aan dalka joogin inay ciidamadu ku mari jireen heestan haddaan ciidan ku dhisnay intuu dhabarka u dhigtay hormeer ugu dhaadayn colaadaha dhamac ka shidin naabahad lama dhaayanayn dhigeey lama sinahane guud ahaan waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan martijarafka iyo mas-uuliyiinta munaasabaddan ku sugan ee ka soo qayb galay xafladdan madax bannaanida dalka jamhuuriyadda somalilan iminka waxaan siinayaa kelmad duqa caasimadda hargeysa cabdiraxmaan maxamuud caydiin solteelko ee islamarkaana qaybkaa guddidii qabanqaabada munaasabaddan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد xuskii 7labaatanaad ee 18 May waxaan ku salaamayaa madaxweyne ku-xigeenka golayaasha qaranka madaxweynihii hore madaxweyne ku-xigeenkii hore iyo dhammaan shacbiyeynaha Soomaaliland iyo ciidanka qarankaba waxaan leeyahay ku ciida ciid wanaagsan magaalo kasta iyo tuulo kasta oo ka mid ah Soomaaliland waxa ka socda xafladda dabaaldega marka shacbiga laga tago qaybta labaad ee ugu awoodda badan leh ee xaflad walba ka qayb qaadanaysa waa ciidanka qaranka Soomaaliland iyadoo ay taasi jirto haddana waxay u jilib dhigayaan cadowga Soomaaliland ee mar kastaba xaaladahan oo kale ku soo beega inay ula yimaadaan waxaan leeyahay ciidanka qaranka Soomaaliland hambaliyo ku hambaliyo idin gooniye maanta waxaan ku soo dhaweyn doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta khudbadda taariikhiga leh madaxweyne ku soo dhawow bismillaahi raxmaani raxiim dhammaan shacbiga Soomaaliland meel uu joogaba
maanta waxaan u sheegayaa oo aan ku wargelinayaa ciidamada federaalka ee Soomaaliya ay weerar qaawan oo xooggan ku soo qaaday qaranka Somaliland ciidamada degan jiida hore saaka waa bariga dagaalkiina hadda uu socdo waxaan u sheegayaa qaranka Somaliland inay ciidamada Somaliland dhammaan ka gaadheen joogkii laga soo wareegay guulaha taaban karo oo ay waliba hubna ka furteen jabiyeen difaaca ciidanka caalamkana waxaanu u sheegaynaa in 3 bilood oo u dambeeyay 25 goor ayna soo weerareen ama ay rasaas ku soo riyeen ciidamada federaalka ee Soomaaliya ciidamada Somaliland ee degan dalkooda iyagoo oo nagu soo xadgudbay 60 kilomitir gudaha Somaliland soo galay oo xadka ka soo gudbay 60 kilomitir intaana waxaanu ku jiray oo cid walba ergaaba hadday qaramada midoobay cid ka socoto tahay hadday tahay dawladaha safaaradaha yimaada hadday ka tahay qaar carbeed waxay nagu waaninayaan dagaal ha laga foojinaado intaaba nabad baanu u taagnanayo waa hadal wayse ka maarmi waayeen soo weeraran waxaanu u sheegaynaa ragga saakana soo weeraray inaan u dhigi doono casharkii aan u dhignay afweynay oo aabahooda waxaanu u sheegaynaa inaanu u dhigi doono casharkii aan u dhigay kuwa axmoodayaan Morgan iyagaan kuwa soo qaadeen waxaanu u sheegaynaa inayna soo xuseen dagaaladii 30 sano ka hor dalka ka dhacay iyo wixiina soo maray dhammaan shacbiga Soomaaliyeed waxaan ku waarinayaa oo aan ku boorinayaa inay iska rabtaan ciidamada qarankiisa oo dalkooda daafacaan meelay joogaanba intaas oo warkii waxaan halkan ka hambalyeerayaa dhammaan shacbiga Soomaaliyeed guurada madaxbannaanida Somaliland madaxweynaha hore idaariyaal kaahin madaxweyne ku-xigeenadii hore shir guddoonka labada gole gudoomiyaha xisbiga Wiciid mas'uuliyiinta ka joogta xisbiga wadani mas'uuliyiinta xisaabta qaranka oo dhan wufuudda caalamiga ah ee ka yimid daafaha adduunka dalalka Ethiopia Kenya Uganda Finland Norway Britain EU iyo Mareykanka waxaan si gaar ah ugu soo dhaweynayaa mas'uuliyiinta ka socota dawlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia oo wafdi culus ka yimid oo aanu saaxiibtinimo wanaagsan iyo qaraabe iyo dadnimo dhowleenahayna aad iyo aad si gaar ah soo dhaweynaya waxaan soo dhaweynayaa safaaradda Djibouti safiirkooda safaaradda Ethiopia Turkey hay'adaha qaramada midoobay ee nala degan halkan aad iyo aad baan soo dhaweynayaa maanta nagala qayb galay xafladan walaalayaal waxaan hambaliyay bogaadin u dugayaa aan la soo koobi karin dhammaan shacabweynaha Somaliland ee dalka ku sugan iyo kuwa dibadda daafaha adduunka ku sugan waxaan si gaar ah u bogaadinayaa maseexdayaasha lagu seexo halyeeyada aan fadhiin een harsan ee had iyo jeer degan surin colaadeed iyo saymo si ay u daafacaan dalkooda waxaan leeyahay ciidamada kala duwan ee qarankeenna kaalinta aad ku jirtaan iyo jiritaankiina iyo hawsha haysaan dalkiinna iyo dadkiinnu wuu idiin ogsoon yahay taariikhdana way ku jirtaa waana laydinku xusuusnoo doonaa intay Soomaaliya jirto maanta oo kale 27 sano ka hor shacabka Somaliland waxa uu ugu suntan yahay maalin milgo miisaan iyo maamuus culus leh waa maalintii ay dib ula soo noqdeen una xasladeen qarnimadoodii luntay waa maalintii ay dib ula soo noqdeen xornimadoodii ka dhacantay oo u dhacantay laabxaadnaan iyo xoog la'aan iyo xiise Soomaaliyeed ee seejisay gobonnimadoodii waxa hubaal ah oo aan caad saarayn in Somaliland hal gandheer oo hayaan dheer kadib ah ay ka soo kabatay intii kadeed mudatay maantana ay ku naaloonayso xorriyaddeeda iyo calankeeda walow maanta ay weli Somaliland intay hadal iyo cunaqabatayn iyo siyaasad dhaaftay ay dagaal qaawan ugu soo qaaday Somaliland waxay leedahay taariikh fac weyn boqolaal sano jirtay boqortooyada Ingiriiska halka ay Soomaaliya ahayd gumaysigii Talyaanigu haystay markii dambana ahayd loo dhiibay wixii loo jiray talastiifka ee Talyaaniga walaalayaal 18 May kumay iman hadiyad layna siiyay balse waxa ku timid dhiigga halyeeyada burbur dhacan xoolo wixii ay dalkani boqolaal sano soo dhaqanayeen goblan agoon weer ayay ku timid maantana hadday na soo weerareen intii in leeg iyo in ka badan baan u furnaa 18 May waa midhihii go'aankii taariikhiga ahaa ee ka soo baxay shirweynihii aayaka tashiga Somaliland ee magaalada Burco 1991 waa go'aankii ay saxeexeen salaadiin garaado guurti iyo cuqaal iyo siyaasiyiin isugu yimid
burco iyagoo isaga dhammaa gobollada oo dhan oo wada saxeexay walaalayaal sanadkan xuska munaasabadda 18 May wuxuu ku soo beegmay xil aynu ka soo baxnay doorashooyin iyo tartan saaxiibtinimo waxaa hubaal ah in guushu marba qof raacdo sidaasna waa sunnaha nolosha iyo tartanka shacabka Soomaaliland waxaan leeyahay walaalayaal kursigu 3 xisbi ma wada fadhiisan karaan 3 qofna ma wada fadhiisan karaan balse waxa ina wada deeqi kara oo aynu wada fadhiisan karnaa dalkeena inaga oo mid ah oo u wada guntan qarankeena waxaanu si siman ugu wada noolaan karnaa istacayl ixtiraam sinaan cadaalad maanta waxaanu ahay madaxweyne kii i doortay iyo kii u codeeyey saaxiibadaydii kale tartamayay waa isku kaymid waa laba Somaliland oo xaq iyo xuquuqna u siman maxay noo qabsoomay haddaynu nahay jamhuuriyadda Somaliland alla mahadi hayaan dheer iyo himilo qeexan iyo haliyeeya aan habeen ka ledin hawsha qaranka waxaynu soo hoynay guulo waaweyn waxaan u mahadnaqayaa odayaashii halgamayaashii siyaasiyiintii waxgaradkii haweenkii dhallinyaradii nafta u soo horay xoraynta dalka dhismaha dalka nabadaynta wadajirka dhismaha hay-adaha dawladda iyo wasaaradaha iyo hay-ad kastoo dalka wax u taray waxaan si gaar ugu mahadnaqaynaa madaxweynayaashii dalkan soo hogaamiyey oo ugu horeeyo allah u naxariistee cabdiraxmaan axmed cali tuur madaxweyne maxamed xaaji ibraahim cigaal allah u naxariisto mudane madaxweyne daahriyaale kaahin oo nasiib wanaag maanta inala fadhiya madaxweynaha axmed maxamed maxamuud silaanyo oo isaguna dhowaan kursiga baneeyey oo ku sugan arrinka ingiriiska maanta iyo golayaasha guurtida iyo golayaasha wakiilada oo sheekh ibraahim sheekh yuusuf sheekh madar ugu horreeyey iyo ku-xigeenkiisa axmed nuux furre iyo odayaashii badnaa ee shirguddoonka la qaybsanayay kuwa dhintay iyo kuwa noolba iyo golayaasha intii soo hogaamisaday oo dhan oo ugu dambeeyey hogaamiyaha xisbiga waddani cabdiraxmaan cirro dhammaantood waan ugu mahadnaqinaa kaalintii ay soo qaateen iyo kuwa noolba muddadii uu jiray qarankani wuxuu ku tallaabsaday guulo aad u waaweyn waxaynu ka heshiinay dhammaan xorgufooyinkii siyaasadeed iyo dhibaatooyinkii dhexdeenna ahaa waxaynu nabadgelinay markii dalka aynu soo gollay 100,000 oo qaxooti ah oo dalka Ethiopia jaarkeenna 77 laga soo qixiyey dawlad deegaanka Soomaaliyeed u badnaa oo dhammaantood inaga oo dhaqaale iyo awood hayn aynu si nabadgelyo ku gudbinay waxa aynu samaynay inaynu ciidamadeennii kala duwanaa ee qaarkood uu isku diray cadowgii siyaad barre iyo kuwii SNM soo galay oo dhammaantood hubaysnaa oo inaan dhaqaale u ahayn inaynu hubka ka dhigno oo aynu qaramayno oo ay maanta yihiin kuwa jiida hore daafacaya iyo kuwa quuxda daawanayseen ilaahay mahadi bay inoo horgashay iyadoon cidina naga caawin waxaynu dib u dhisnay dhammaan haykalkii maamul ee dawladnimo maanta Somaliland waa qaran 27 jirsaday oo leh dal calan ciidan cumlad cudud iyo cuud aan la soo hawaysan karin oo aanu ninna aanu ku dhiran karin walaalayaal waxaynu dib u dhisnay una qaramaynay dhammaan kaabayaashii dhaqaalaha dalka waxaynu yagleelnay oo aynu hirgelinay dastuur qaran oo ay u codeeyeen 97% dalka ku nool jamhuuriyadda Somaliland waxaynu dib u hirgelinay dhammaan adeegyadii caafimaadka bulshada sida waxaynu hirgelinay waxbarashadii caafimaadkii biyihii kaabayaashii dhaqaalaha waxa ammaan iyo bogaadin aan u dirayaa mas'uuliyiintii kala duwanaa ee ku hawlanaa dhammaan hawlaha qaranka u qabsoomay hadday wasaarad yihiin iyo hadday hay-ad yihiinba waxaanu dalkeenna ka dhignay dal dimuqraadi ah oo leh axsaab badan oo tartanta isla markaana qabsaday doorashooyin xor iyo xalaal ah kuwaasoo mararka qaarkood aynu dal ahaan horseed ugu nahay dhammaan qaaradda Afrika in yar mooyaane waxaynu soo jiidanay maalgashi shisheeye iyo saaxiibo dhaqaale xoog leh ku ballaariya oo ku aamina dalkeenna kuna casreeya dekadeenna barbara kana dhaqaalaheennana ku aamina dhaqaalaha inta laga Soomaaliland soo geliya walaalayaal Soomaaliland waxay maanta maraysaa marxalad aan loo baqayn waxaan u sheegaynaa cadawgeega maanta 15 May waxaanu gacanna ku haynaynaa difaaca dalka
oo kaga ku jabinayna cadowgana soo weeraray gacanna waxaan ugu dabaaldegaynaa qarannimadayada ood xuduuddeeda arkayseen caalamka waxaan u sheegaynaa iyo jaarka dalalkaanu jaarka nahayba somalilan tuugsan mayso baryootamayso way tartamaysaa hadday tahay dhaqaale hadday tahay siyaasad iyo hadday tahay ammaanka dalkaba walaalayaal dhibaatooyinkan haysta waxaa ka mid ah sicir bararka waxaa dareen xanuun badan nagu haya xukuumad ahaan iyo shacbi ahaanba dhibaatada uu geysto qiimo dhaca shilinka somalilan dadweynaha danyarta ah annagoo arrintaa ka duulayna waxaannu qaadnay tallaabooyin wax ku oola iyo dadaal badan sidii loo jabin lahaa sicir bararka ah ilaahay mahaddii maanta boqolkiiba 12 ayuu hoos u dhacay waannu sii socon doonaa insha allahu waananu sii wadaynaa dagaalkaas walaalayaal kamaadharinta hamiga iyo higsiga qarankeennu waa mudnaanta koowaad ee siyaasadda arrimaha dibadda iyo sida ictiraaf caalamka aynugu heli lahayn tiirarka koowaad ee siyaasadda arrimaha dibaddu waa nabad ku wada noolaanshaha dhammaan caalamka oo dhan iyo dariis wanaagga dalalka aynu jaarka nahay tiirka labaad waa in iskaashi dhow lala yeesho dalalka dariska ah dhinaca ammaanka dhaqaalaha horumarinta iyo wax wada qabsiga tiirka saddexaad waa is-ixtiraamka iyo xaqdhowrka xuquuqda qarannimo ee dal weliba uu leeyahay xuquuqda bini'aadnimo ee qofka iyo horumarinta nolosha bini'aadmiga waxaannu u sheegaynaa dhammaan caalamka oo dhan inaannu ictiraafka ku helayno waxaannu qabsanno in ay dawlad wal iyo qof waliba noo baahdo oo aannu isu baahno ee aanaan ugu tegaynin baryo iyona aqoonso walaalayaal soomaaliya ilaa 1960 maalintii la midoobay isla sannadkaa gudihiisa baarlamaankii muqdisho joogay waxa uu hirgeliyey iyada oo aan cid waxba isweydiin sharci ahaa midow oo aanay kaba qayb gelin xildhibaanadii somalilan ka tegey dhammaantood waxay iska deedifeeyeen go'aanadii 27 juun uu gaadhay baarlamaankii somalilan ee daartaa iminka ah maxkamadda sare ku gaadhay ee ahayd shuruudaha lagu midoobayo khilaafkii maalintaa dhashay wuxuu keenay dhimashadii ugu horraysay disembar 60kii markii saraakiishii inqilaabka isku dayday lagu dilay maxamed siciid aabe ilaa maalintaa dilkaa laga bilaabo ilaa saakadaa aynu joogno waa noo dil iyo weerar iyo burbur ay nagu hayso soomaaliya waxaan ku talinayaa inaannu bilowno jawi nabadeed innagoo ah laba dawladood oo walaaloo dadda isku dhow oo kala ah soomaaliya iyo somalilan wixii aan taa ahayniba waa colaad joogta ah iyo khasaare gudaheenna ah taasaan u sheegaya qolada somalilan waxaannu caddaynaynaa bulshada caalamka inay soomaaliya iyo somalilan u ka dhexayn jiray qarannimo la isku afgaran waayey la isku dilay oo duntay waxaan u sheegayaa soomaaliya iyo caalamkaba inaannu u taaganahay nabad waxaannu u taaganahay nabad waxaannu doonaynaa horumar ma doonayna dagaal waxaase naga ballana ku yar iyo ku weyn haddii nala soo doonto oo dalkaygana farageliyo in colaaddaasi ay noqoto tu lagu gubto oo in badan socota ilaanu xadka ka gaadhin walaalayaal dhibaatooyinka qaranka hor yaalla waxaa ugu waaweyn qaadka oo khasaaro ba'an oo dhaqaale iyo mujtamaca ku haya oo aynaan runtii isdareensiinin waxaa ka mid ah qabyaaladda iyo kala qoqobnaanta oo maalin walba ay dhacdo beela isdila oo dilkooda weliba iminka sida cadowga isu diloo tiro bato walaalayaal dagaalka ka socda meesha la yidhaahdo ceelaf weyn oo soo noqnoqday dawladdu waxaa ka go'an inay ka qaaddo tallaabo dawladnimo oo ay soo xidho gacanta ku soo dhigto qof kasta oo nabaddiida waxaa ku sugan sanaagga wasiirkii daakhiliga iyo ciidamo xooggan oo hawshaa aan baryayn oo aan ku waaninayn waxaana ilaahay mahadiya in ku dhow 50 qof oo hubaysan oo ka dhigeen in laga soo xidhay ceelaf weyn oo ay kuwa la soo wadaan waxaan u gudbi doonaa saylac odayga taajirka inanta ka dagaalka ka qayb qaata ee fidmo walaha ah gacan dawlad baynu ku qabanaynaa waana inoo go'aan waana isku raacsannahay waxaan ugu baaqayaa dhammaan waxgaradka sanaag inay ka qayb qaataan deminta colaadda ay wax magaratada iyo dadka fidmolaasha abuurayaan
waxaan baaq gaara u sii jeedinayaa magaalada ceerigaabo meeyarkeeda iyo odayaasheedu waxyaalaha ilaa shalay ka dhacdhacaya inay ka hawlgalaan waa arrin naxdin leh in magaalo weyn oo ceerigaabo oo kala ah inama yaryar qolyo la soo golaan ay dad xabad ku dhuftaan ciidamadu way ka hawlgalayaan way magaalada waxay ka dhigeen bando welina xoog bay ku hayaan laakiin waa in la soo qabtaa fidnoolayaashii xabadaha riday oo la isugu tagaa waxaan ku soo gabagabaynayaa maanta waa maalin mudan inaynu xusno oonu dhammaantaan ishambaryayno oo aynu qarnimadeenna dabaaldeggeeda xoojinno oo xusno wixii loo soo maray iyo mustaqbalka ifaaya aynu doonayno waxaa inoo ballana difaaca qaranka iskotashiga inaynu midowno oo qalbiga isu furno oo aynu mid noqonno si aynu iska dhicinno dagaallada inagu socday cadowga nagu haya faraha badan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu